waayahay warin salaamay asxaabtiida markuu ugu horeysa meelowba joogtaan war degdeg oo ka imaanaya dalka Mareykanka ayaa waxa uu sheegayaa in la weeraray Ilhaan Cumar oo ah gabar Soomaaliyeed oo ka tirsan Kongareeska dalka Mareykanka. Ilhaan Cumar oo ka qayb galaysa kulanka dhacaya magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ayaa waxa la sheegay in cadaan oo ka qayb galayay ama kamid ah dadkii ka soo qayb galay kulanka inuu soo istaagay iyadoo markaa gabadha mikrofoonka ku qudbaynaysana uu ku soo waxyaabo dareere ah oo markaa uu ku watay cirbada ama saliingada dadka lagu duro ilaa ay hadda booliska ma isna sheegin wax allaale iyo wuxuu ninka gabadha ku shubay iyadoo markaa ciidanka booliska ninka qabteen xabsigan u taxaabeen. Sidoo kale aqalka cad ee Mareykanka ilaa ay hadda kama uusan soo hadlin wixii ka dhacay magaalada Minneapolis ee gabadha lagu shubay iyadoo markaa uu dagaal weyn kala dhaxeeyo xisbiga Jamhuuriga ee markaa uu hogaamiyo madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump oo dhowr mar sheegay in ay mudan tahay in Soomaaliya dib loogu celiyo. Ilhaan Cumar weerar baa lagu qaaday dabcan daawadayaal sida aad la socoteen weerarkan ayaa dhacay xilli ay khudbaynaysay ka imaw laakiin arinta xiisaha leh warbaahintii dunida oo dhan ay war hayso waxa weeye geesinimadeedii baa lala yaabay ninkii weerarka ku soo qaaday waa ta interfere u duubataba isku beeg dhabarka ayay markale ka jabeen cunzuriyiintii isku dayday weerarka Ilhaan mana ahan weerarka ugu horeeyay dabcan weerar hore waa Ilhaan lagu soo qaaday laakiin markaste ay isku dayaan Ilhaan inay weeraraan waxa ay sii dhigtaa cashir lama ilaawana waa loo toghayay in la soo weerarayo loo hanjabayo ninkan qaybta hore ee sabka wariyaasha sawirada qaaday ayuu fadhiyay sida arkaysaan yacni soo socoshadiisa inuu soo istaago la qabanayo dareensanay oo soo istaagay shay dareere ah ayuu ku buufiyay ama saliinga dabcan ku jira taasina waxa ay muujinaysaa in ay tahay gabar haliyeeyad ah laakiinse kooxuhu ay ku sii dhiiranayaan dhibaatadeeda dabcan waa la soo celshay khudbadii in la xiraa la isku dayay way diiday 30 daqiiqo oo kale ayay ka sii hadlaysay ahamiyadda halkan aan u imid ayaa ka weyn weerarka aniga lagu soo qaaday waa darbaxyo kale oo kooxda ku dhacday u soo duceeyay walaasheena in Ilaahay badbaadiyo meel walba ay joogto ma santiin Soomaaliyeed waayahay warin salaamay asxaabtiida markuu ugu horeysa meelowba joogtaan war degdeg oo ka imaanaya dalka Mareykanka ayaa waxa uu sheegayaa in la weeraray Ilhaan Cumar oo ah gabar Soomaaliyeed oo ka tirsan Kongareeska dalka Mareykanka. Ilhaan Cumar oo ka qayb galaysa kulanka dhacaya magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ayaa waxa la sheegay in cadaan oo ka qayb galayay ama kamid ah dadkii ka soo qayb galay kulanka inuu soo istaagay iyadoo markaa gabadha mikrofoonka ku qudbaynaysana uu ku soo waxyaabo dareere ah oo markaa uu ku watay cirbada ama saliingada dadka lagu duro ilaa ay hadda booliska ma isna sheegin wax allaale iyo wuxuu ninka gabadha ku shubay iyadoo markaa ciidanka booliska ninka qabteen xabsigan u taxaabeen. Sidoo kale aqalka cad ee Mareykanka ilaa ay hadda kama uusan soo hadlin wixii ka dhacay magaalada Minneapolis ee gabadha lagu shubay iyadoo markaa uu dagaal weyn kala dhaxeeyo xisbiga Jamhuuriga ee markaa uu hogaamiyo madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump oo dhowr mar sheegay in ay mudan tahay in Soomaaliya dib loogu celiyo.